لله وبعد waxaan ka soo dhamaanay lixdii faral ee dadkii ahlu faralka ahaa 25 qof faral waxa wax ku qaata aan soo aragnay 7 qof oo faral baxtiya wax ku qaataan meel kala gelin iyo afartii gabdhood oo marra casabada noqonaya marra la casabeynaya marra faralka wax ku qaadanayay oo 11 iyo aabaha iyo awooga oo iyagu marna faral iyo casabo wax ku wada qaadanaya marra faral qura marra casabo qura 14 qof ay ahaayeen oo qaarkood labada dhinacba ku jiraan halkana waxaanu ka gelaynaa casabadii at-tacsiib oo waxa wax lagu dhaxlaa ama waa faral oo wax jaan go'an ama waa casabo oo casabada marka ahkaamteedii buu sheekhu inoogu bilaabay wuxuu yidhi ahkaamul caasib caasibka ama qofka casabada ahkaamtiisu koo waxa weeye idan farada hadduu keligii noqdo akhada jamiical maali xoolihii oo dhan buu qaataa hadduu keligii yahay xoolihii waxba kama reebee keligii waa qaata ويأخذ وحو قاتا الباقي وحي سوهرا بعد أصحاب الفروض تدك أهل فرلكا markay wuxooda qaataan wixii u soo harana wuu qaataa oo xukun labaad u leeyahay ويسقط وضعا qofkii caasibka ahaa إذا استغرقت الفروض faralladii hadday dhammaystaan التركة حوله تركتها haddii ahli faralku ay dhammaystaanna wuu dhacaado sidaasuu ku xijaabmaa ila alibna aabbaha wiilka moojaane wiilku isagu marna ma dhaco oo waxa weeye xoolo lagama laasan karo aw ilabba iyo aabbaha labadaas oo casabada ka midihi iyagu xukunkaa saddexaad ee isqaadku ma haleelo oo xoolaha laga laastaa ma haleelo xoolahooda iyagaaba difaacanaya dadka badankiisa xijaabayaan sidaa darteed suuragal ma aha in la yidhaahdo aabbaa xoolo waayey ama wiil meydkii dhalay baa xoolo waayey sababtoo ah xijaabna ma galo xoolana lagama laasan karo oo ahlu faral kama laasan karaan marka ila libna walabba aabbaha iyo wiilka meydku dhalay moojaane falaa yasqudaani abadan weligood ma dhacaan buu yidhi inta kaleba saddexdaa xukun bay leeyihiinoo hadduu keligii noqdo marka caasibka waxaynu ka wadnaa casabatu binafsi casabatun bilkhayr iyo casabatun maca alkhayr dee keligoodba inay munfarid noqdaan casabana noqdaan suuragalba maaha mar walba cid baa weheliso oo casabaynaysa marka tanqasimu alcasabatu ilaa 3 aqsaam saddex qaybood bay u qaybsantaa casabadu casabatun binafsi tii iskeed casabada dadkii u ahaado iyagu aan cid ka qaadanaynin casabanimada ee u dhashay casabanimada wax ku dhexli jiray liqowlihi uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ee nebigu alxiqu alfaraa'ida biahlihaa dadka ahlu faralka ah faraa'ida waxaad haleelsiisaan dadkii ehelka u ahaa oo xoolihii ilaahay u jaangooyey siiya famaa baqiya wixii soo hadha wa huwa liawlaa rajulin dakarin ninka ugu dhow oo labbaa iskale weeye muttafaqun calayhi marka yaa casabatun binafsi ah jamiicu lwaarihiina dadkii wax dhexlayey ee min arijaali ragga ahaa casabatun wa casabo ragga imisay ahaayeen 15 wuxuu ku yidhi 15 nin waa casabo maa cadaa marka laga reebo assawja sawjkii iyo walakhali ummin walaalkii hooyo 15 nin marka labadaa laga reebo maxay noo soo haray 13 nin waxaa la yidhaahdaa casabatun binafsi iskood bay casabo u yihiin
labadan maxaa looga reebay fainahum iyagu asxaabu fardin waa asxaabu furuud bay ka mid yihiin faral bay leeyihiin jaan go-an oo iyaga sawjka iyo akhul umku toddobadii faralka qura wax ku dhexlayay iyagu marna aan casabanimo aadayn bay ka mid ahaayeen markaa 13 nin ee kale ii qabooba ku yidhi waad iga haysaa ilaa horaad usoo aragtay wa min annisaa'i dumarkana waxaa casaba ka noqda casabatu binafsiga almuctiqatu muctiqada gabadhii u xoraysay faqad oo keliya fahiya iyadu caasibatun wa casabo wa cadaduhum tirada casabadu qad yaziidu inuu ka siyaadaa la arkaa calaa 14 caasiban casabo ahoo binafsi iskood casabo u ah 14kan yaa ku soo siyaadi kara ba isweydiin lahaa 14kaasaa casabatu binafsi la yidhahda markooda hore oo waa 13 nin oo ragga ka mid ahaa oo sawjka iyo akhul umka aan ka reebnay 15 nin iyo muctiqadu aynu ku soo darnay walaysa linnisaa'i durran casaba ila allatii mannat bicitqi raqaba raxbiyahay ku jirtay sooma yaa dumarku iskood casabo uma noqdaan gabadhii waxa weeye qoorta xoraysay moojaane marka waqad yaziidudan wuxuu ka wadaa qoladan muctiqa iyo muctiqada ayaa waxaa kusii daba rakiiban casabadoodii oo 14kan caasib aan sheegnayba way yeelanayaan iyaguna haddii la waayo muctiqii ama la waayo muctiqadii 14kaa qof ee hadda casabatu binafsiga ah buu yeelanayaa muctiqulmuctiq baa imanaya ama muctiqatulmuctiq waxaa imanaya aabbihii wiilkiisii walaalihii kuway dhaleen adeeradii kuway dhaleen way wada imanayaan marka halkaas wuxuu inoogu caddeeyey 14kii qof ee casabatu binafsi ahaa isagoo inoo tilmaamay casabatulmawlaana inay sii daba taxan yihiin casabatun bilkhayr waa qaybta labaadee qolo casabowdaa jirta iyagu iskood casabo uma ah laakiin dad baa casabeeya oo waxay ka timi aayadda qur-aanka ah yuusiikumullahu fii awlaadikum ilaahay wuxuu idiin dardaarayaa ubadkiinna lidakari kii laba waxa u sugnaaday mithlu xaddil unsayeyni laba hablood ama laba dumara dheeftiis ayuu qaadanaya macnaa laba dumara dheeftay qaadan lahaayeen ayaa kii dakarka ahaa uu qaadanayaa marka gabdhahan iskood casabo uma aha wiilashii la sinaa ayaa casabaynaya oo markaasay waxay soo gelayaan qaacidada ah lidakari mithlu xaddil unsayeyn wahunna casabatun bilkhayrku waxay yihiin dumarkaasi 4 albintu waa inantii uu meyd ku dhalay iyo fa akhara wixii ka badan yacsibuhaa waxa casabeeya alibnu wiil iyo fa akhara wax ka badan wiil meydkii dhalay hadduu joogo gabdhihii meydku dhalay mid ha noqdaan ha ka bataane faralkii waa laga xijaabayaayo casabay u guurayaan casabatun bilkhayr baana la yidhaahdaa qolada labaad waa bintulibni inantii wiilku dhalay iyo fa akhara wixii ka badnaa yacsibuhaa waxaa casabaynaya iyagana ama casabo ka dhigaya ibnulibni wiilkii wiilku dhalay iyo fa akhar wixii ka badan fii darajatihaa ee la darajada ahaa aw amase anzala minhaa ka hooseeye in ixtaajad ilayhi haddii ay u baahato casabanimadiisa oo waa markii gabadhii bintulibniga ahayd suduska laga xijaabo oo gabdhihii thulusayn qaataan xataa inanka ka hooseeya ee eedada u tahay ama iyada u tahay wuu casabaynayaa wataynu xalay soo mareen alukhtu shaqiiqa gabadha shaqiiqada ah oo aabba iyo hooyaba meydka la wadaagta la casabeeya iyo fa akhara mid qura markay tahay markay ka badan yihiin yacsibuhaa waxaa casabeeya alukhtu shaqiiqa fa akhar yacsibuhaa waxaa casabeeya alakhu shaqiiq fa akhar wiil shaqiiqa iyo wixii ka badan alukhtu liabbin gabadha aabbaha iyo fa akhara wixii ka badanna yacsibuhaa waxaa casabeeya alakhu liabbin walaalkii aabbe iyo fa akhara wax ka badan marka 4 hablood
ومركي مدمدك يهين بركة قادن تري هدي لبا يكبدا نقدان ثلثين كقادن تري هدي إن مل الدرجة هو هليان وحي نقدان عصبة مقع إليهن ينانيست إليهن مر هدي ويل عصبية أو ويل يقبر وحلوقة يبصدو للذكر مثل حد الأنثيين وحلا يراهدا عصبة بالغير قيمت صدحت عصبة مع الغير وقالوا غير كيد وعصبية لقول ابن مسعود به دليل عصبة مع الغير ابن مسعود الكبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوحى حكمه وحكمي للبنت قبردي بالنسبة برين إلى ذهي ولبنت الابن إن أنت ويلكو علينا بالسدس إن السدس لا ذهي وما بقي وحي سوهرنا فللأخت ولا شعل بيت وش قال وحي سوهرا ولا شلسي إن عسويهين هل كاسا لك قاطع الخوات مع البنات عسبة فالأخت ولا شيء مركي كيلجيتها أو الأخوات أما مركي قبل بدن ولا لايهين شقيقها نقطة أو لأب أما ولا الأبها نقطة إذا كنا هدي وهليان مع البنت الواحدة قبل ميت كدلو كيلجيدا يفع أكثر وحي كبضا وحبلعه أو أمس بنت الابن إنويل كدلي الواحدة وكليئة يفع أكثر وحكبضا يصبحنا وحي نقنيا عاصبات مع الغير غير كوكو عسبوبة غير كوكو عسبوبة مركا عصبة بالغير عصبة مع الغير وحل إلى هذا عصبة بالغير وأنثى ثرنا عصبة بالذكر مركا ويل عصبة كل نقضان وحل عصبة بالغير أنثى بالأنثى هذه عصبة كل نقطة عصبة مع الغير بالغير هيا لويلكو للذكر متحدلون سيئين وقيب سنة لكن قبلها ولا لها أهو أما شقيقتها أما ولا لها أباهي مر هدي فرع بديق لكلمان هل كي ويلك يستاغيان عصبة نقونيا وحل لو ويلكو حجابي جرينا وحجابيا وحوقي سبيا لنا هدي وحبو سوها روايان يوسك تغيان هل أورن شقيقتي هل كتاغن با حوليه با laga laasan hada hadaynu nana meesha waxa jooga sawj iyo laba gabdhood iyo hooyo iyo ukhta shaqiiqa ah ukhtada shaqiiqada maxay noqotay hada suge sooma baaqi suge law asabatun bil ghayro farc dig ba meesha jooga labadii gabdhood laba sulus bay leeyihiin hooyadii sudusul maal bay leedahay farc ba jooga sawjkiina muxuu leeyahay ruuc oo caruur ba joogta مسألة لبيه طبعاً بيكون لسانتو الربع يبا يسوي يمي ثلثان لبيه طبعاً كي سيدير حريق حبليه باقاته صد حريقنا وحقاته سوجي الربع يسوي ويدينا لبا حريق بيقاته ويبا عولان تايو يجي بيسكو عريدي شقيقات محوي هلي قيل عانا كمالا حي لي عصبة مع الغير ويجي مركا صدح راسه وكلا بحان هل كان نوع من روحتي جهات العصبة بالنفس قلدا هراء صدح يطوانك يو معتقدنا قدر أفر يطوانك وعصبة بالنفس اللي يراهدو جهات بإليهن جهات كاسي عصبة بالنفس 5 شنوية عند الأحناف مركا حنفية دا أنو كأبنه وقولك الشيخ يساق الله في عن أو راعي علماء عن شافعي حنفية أهين واللح جهوينكو ما شنبا مسوى اللح ولا يسوى خلاف وحين كدلتي أهبها يأووغا ما يسكو هذا ويسكو أقود مسي أبيه يأووغا وينو كلا قادنا مركا سوى أبيه يأووغا بيسكو كان ترى وحنا الربا إنو نيراهضو أووغا وآبه وحي أبيه إرجي جرينا أووغا إرياه لكن مين كل راعنا ما مذهبكينو waxa weeye awooga iyo walaalaha aabe ashaqaha noqdaan ama aaba quraha noqdaan waa sameeyeen marka tanbiihu inoogu sheegi doona
أحناف أكتوده وشنبو كيريو والبنوة وحقي عرورني ماذا هو كعسبه جهادي عرورني مو وح الله وحي كافر عمي وإنا معه وعصب النقضي وحعسبه داسي أي تهي بنوة وعرور ودليل والله دغي الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا هذا هو سيانه الأبوة يدنا وحا قرضا كفيليا آبه يو أبو الأب آبها آبه وإن على هذا كريا وقا شرادها نقضه الأخوة ولا النمو مركا يغنا والإخوة الأشقاء ولاله هو أبا كراها أو لأبنا ما أبا كراها وأبناؤهم يعرورتي أيدالين وإن نزلوا وصبه وداد walaalka wiilku dhalay wiilku sii dhalay waa walaalun ku soo faylayaa baabkii ukhuwada uu soo gelaya jihadaas waa dhawaynu soo eegayna markaynu isku xijaabayno jihaynu eegayna wararta maxay isku jihaa maxaa kala jihaa markay isku jiha noqdaan baynu hadana darajo eegayna intaas oo raba inuu google kaaga sii dhigo al umumatu wa adeeradii oo waxa laga wadaa al a'maamul ashqaa'u adeeradii aabaha shaqiiq la aha aw li abna ma aabaha qura la aha وين علو هبا كوريان يو أبناؤهم عرورتي أي سيدا لأنه إن ما ديرتاها وإن نسلوا هوس وهو دادقين كواسنا جهدي عمومة كإيمانيا أديك أديرك أباها أديركي أوغا أديركي إن مدودي وحاسوات من محيكو فايليان جهدي عمومة قيبت شنادنا الولاء ووله وضدك وحريي أما قبرها النقطة أما ويل هالنقضاء معتقي أما معتقدي يقولنا جهاد أي كإيمانيا وحلا يهذا جهة الولاء ولا يكون إيمانيا أو يقول نصب أنت نهار عفرت نهار ونصب مرك عفرتاس أيها شافعيدو قيب طلبات كالقاطي يا حنابلة يا مالكية وحي راجع جهاد أبوه وأباها قرأة يو جهة الجدودة يا أي أبو يال اللي حد محنا قنسا من جهة الجدود أبوي يسأل قوني على كده سببته أبوي يولالكي أيها إسكو درجة إنه شو غيرنا إذا درت بين أبوي يولالك سيدة تفاصيل شيء إنه إيمان دونته أين حقوق قيبين دونا لكن حالتي أنو كده حيسين دونا مركا وحكوا إذا اجتمع إذا قاعدة العصبة بالنفس قاعدة أي لا عصبة بالنفس سنوك الهر مريننا إذا اجتمع عصبتان لبع عصبة هديسو يمادان يفع أكثر وحكة بدن قدم وحي إنه الرئيسين إنا عصبة لماذا كوه الرئيسين إنا الأسبق إلى الميت قفك ميت كأسو ديريا في الجهة حق جهة ولا يعتبر لو عبرين ماي لو إيجي مايو بعد درجة فوقانتيد في هذه الحالة حالة داس وحن لأنها جهوينكي ميت كويك الحقان مركا جهة البنوة أقول حقانو هدي ميت كي رقو دالميشة جوغو ويل كي جوغو جهة سا عصبا نمدي قادنيس أبيه ولغلي عصبا نمدي فرل بلو إريا مرادي فرع لبي جوغو هدي آب جوغو آبيه وحكا هريا ساقنا أبو ياشي يوحي كدنبيه وردان حواشدي هدي أبو جوغو وحي أن ولالاهين بكو حوقين يساقنا وإريا walaaluhuna wixii ka dambeeyay eriyaan oo iyaguna labadaas tartiib u yeeli mayno sidaan hore u soo aragnay adeeradii waa ku xiga jihada wixii ka yimid mar haddii walaala joogaan iyo ubadkoodii adeer waxba dhaxli maayo oo iman maayo hadduu joogo walaalka wiilku dhalay wiilku sii dhalay ama si kale haddaynu u sheegno dhashii aabbaha haddii wax ka nool yihiin oo rag ah dhashii awowgaa meesha iman mayso dhashii awowgaa haddii wax ka joogaanna dhashii aabbaha awowgii iman mayso wahaakada
qolada ugu dambayso oo markaa walahana iyagu inta nasab joogaba meesha iman maayaan wuxuu wayarisu bihi almuctiqu walaha waxa ku dhaxla almuctiqu ninkii uu xoreeyey aw almuctiqatu وعصبتهما المتعصبون بأنفسهم أفر يتوانكي وكسي دابان واتينو نري مركا تاس وصور دافنايا قضب كصدحات وحري قضب كلابات مثال بينسيه الابن هدي إن نشوغو وإن سلهوس وهودا الدقيق يقدم على الأب أباه سكا كهرية الجد أوغي وإن على هبا كهرية يقدم على الأخي وقاعدتي سيبكو سعودة حنفية ابن الأخي هدي ويل ولا الكاد لا يوجوغو وشقيق أهي أودالي أو مثل لأب ولا الأب دالي يقدم على العم أديركي سكا كهرية شقيق أها أو لأبها إذا اتفق عصبتان لبا عصبها ديسو يمادان وفي الجهة هل جهة كوضا سعودة ومركا قاعدة كوان فاعسة مركا لبا عصبه يسو جهة أبا كوجيب واختلفا في درجتي لكن محيكو كلا دوينه حقي درجة قدم وحا لهور مرينيا الأسبق في درجتي كي درجة كهرية ولا يعتبر لإيجي مايو ضعف القوة أو دياريدا أو مركا كي هو يدا وتي كي هو يدا كمغنيت لو كلا إيجي مايو في هذه الحالة حالة داس أنا إسكو درجة أهين كي درجة سرية بحوله قادنا يو كي فقابا لإريو حتى هدي قوة ديرادة وطو وبهنما وطو معناه مثاله هو حوته صالح أبو كير الابن ويلكي يقدم لساق الله قهر مرينيا على ابن الابن ويلكي ويلكو دالي لو اسكو جهة البنوة ويكي ماتين مركا هدي ابن جوغو ابن الابن يوحي كهوسيا واسكتغيانا وحا الهر مرينيا كي درجة سرية ابن الابن هدو جوغو ابن الابن واسكتغيا الجد أووغي وإن على هبا كورية يقدم على الأخي ويدي متوا سواء كاسما هذا الأب عابه يقدم على أبي الأبي أووغي بالله هر مرين هدي أب جوغ أووغ ما إيمانه ابن أخ لأب ملكي ولالكا أب دالي يقدم وحا لغهر مرين يا على ابن أخ شقيق ويل كي او دالي walaalkaaga shaqiiq ah wiilku sii dhalay baa laga hormarinaya kan ka sareeya ka darajada sareeya laakiin ka quwada yar ayaa la hormarinaya sababtuna maxay tahay waana isku jiho isku darajana ma marka ka darajada sareeya walaalka aabaha dhalay oo aan kula hooyo ahayn wiilku uu dhalay wiilkii walaalka shaqiiq ah awowga u ahaa kana qaadanaya xoolihii walaalka aabe ah wiilka uu dhalay ee sokeeya oo soo xiga xagaaga oo kan maadaama uu bahla ahaa bahdaas wax uu tari mayso mar hadaan la darajo ahayn bahdu waxay wax tartaa markay isku darajo yihiin tusaalaha saddexaad wuxuu yiri ittafaqa casabataani fil jihati wad daraja laba casaba hadii ay iska waafaqaan jihadii iyo darajadii واختلفا في القوة وحقي قوة اسكو خلافان iyo hooyada قدم الأقوى كي هو لبدا والد لبدا أصل وتي أيا الله هرمرينيا مثاله وحط صلاة الأخ الشقيق ولالكي هو أبابا ميتكلم وداق يقدم وحلقه هرمرينيا على الأخ اللي أب أبها قركي لوداق ابن العم الشقيقي ويلكي أديرك الشقيق أهي دالي يقدم وحلقه هرمرينيا على ابن العم لأب إن أديرك عابه ودلي حالة أفراد إذا اتفق عصبتان فأكثر لبع عصبية كبضان هذيك كل ما في الجهة حق جهة يهو الدرجة حق درجة يهو القوة حق حوق فإن المال حوله تقسم بينهم والله قيبنا على سهامهم سهامته ذا الله قيبنا مثاله تصالى وحواء
الأبناء إن ما بدن بميتك كتير أنا ما لاسي ويسكو درجو وأنا اسكو قوة وأنا وسمين وأنا اسكو شهو حولها وقيبي بدنا ميت كمان منا ويلا لا شقة أبا شوقا الأبناء أو الإخوة أو الأعمام هو اسكو وضع سمان حولي وضو قيبنسا فإنهم عيالا يشتركون فيما بينهم بالتعصيب عصبا لماذا كان حيث ويسكو درجو ويسكو قوة قضب كشنات يقدم واحد هرمرينيا عمومة الميت ميتك أديردي يو أبناؤهم من مضي دالين وإن نزلوها بهوسيان على عمومة أبي الميت أديردي ميتك أبيه أديرد وأها كوي ميتك أديرك وأها بكهري ويقدم واحد هرمرينيا أبي الميت عمومة أبي الميت أديردي أباه ميتك أديرك وأهانا وأبنائهم يوحي كفر عمي على عمومة جد الميت أووغا أديرك وأها يدشودي ولا غفر مرينيا وأباها أنت فرع كتشوغ أووغا لو قد بما يدشيس أووغا أنت فرع عيسي وحكتشوغان أووغا الله بعد لو قد بما قضب كل حال كل عاصم بالنصب حاسب كستو قرابة عصابك واه مهما بعود سكستو كاغا فوقيها اوغاغي تبنادنا هداله يقدم waxa laga hormarinaya على العاصب بسبب كي سبب عصابك ku noqday ya عصابه sabab ku noqday wa qoladii walaha ya qoladii walaha wax ku dhaxlaysa mu'tiqiyo mu'tiqada iyo casabadoodii waxa ka horeeya casabadii qaraabada مثاله التصالح ابن عم شقيق للجد بكير ابن عم إن أدير كا ويل أودالي إن أدير أو أدير شقيق أو أهالي الجد أووغا يقدم واحد لغهر مرينيا على المعتق لفتيسي أو المعتقة تاما قبل المعتقة ذاهي ومركا هدي قرابدي عصبة قرابة أهي جوبتو عصبدي سببك ماشا ما إيمانيان هل كم وحين أقول جدول رقمي لتوضيح أقرب عاصب بالنسب للميت وجدول نمبر رئيسا أو إنو عضينا يا عاصبك أقول نصبهان ميتك سيدي وكال حقان نمبر رئيسا سيدي وكال وطان بين انت بدن يسو حجابيا ميت كيبو ينوقري الميت فروين او مدوبو كقري رقم واحد هوس حقا هوس وحي نوغو قري فروع دي كورنا وحي نوغو قري اصوشي هريرهنا وحي نوغو قري حواشي دي هاي يلي دادك صدح لاسا الله قيبيها أصل يفرع يحواشي وفكار يريسي جوغا ميت كفرع عيسى أقوم مدرنا نمبر رقم واحد وحا الابن ويلكو يساقو دالي هدي ويلكاسي جوغو يساقون با عصبا إد كلو عصبا شاقان كرتاه مجرتو وحي يساق الله سيمانا والله عصبو بيها حتى هبلا هدي ويليان يساق عصبين رقم كلابات ابن الابن هدي ويل كان أنا ميشا جوغين وحا كوحية ويل كيسي الفروع waa ku sii xigaya waa in salo hoos wiilkaaga shanaad wiilku dhalay hadaan cidi ka sokeyn isaga casabanimada aabaha kale farcaaga lab aw wiilashaadu ka sii farcamay iyaga ka mudan xagga casabanimada aabaha kaalinta labaad waxa iska leh kaalinta saddexaad baan leeyahay ilaa kaalintii koowaad iyo tii labaad wuxuu siiyay فرعاغي كالنتي صدحاتنا وحسي آبها كالنتي أفرادنا وحسي أووغا كالنتي شنادنا وحسي آبها أووغي وهكذا انت أووغ شوغو ساقون باكو آبها ويقونا مرهدي أووغ شوغو
cid casabanimada ka riixanaysa mar haddaanuba joogin aabana joogin ma jiro hadhowna sidaasay xijaabkana isu xijaabayaan wiilku aabbahaanu xijaabi karin iyo awowga wixii xaggaa sare ka yimaada ma xijaabi karo wixii ka hooseeyana waa xijaabayaa xawaashidoo dhanna waa xijaabayaa aabbuhu wixii u bada ma xijaabi karo laakiin wixii isaga ka sarreeya iyo xawaashidoo dhan buu xijaabayaa awowgiina shiikhu isagu wuxuu qaatay qowlka ah aljaddu abun awowgu waa aabe wixii aabbuhu eryi jiro dhan buu ku eryayaa kaalinta lixaad markii laba awow inoo sheegay al usuul weyn calow buu ku yidhi awowyadii halkay doonaanba ha gaadhaane iyagaa markaa casabanimadii xaq u leh buu ku yidhi laakiin innaga haddii aabbaha la dhaafo waxaa inoo siman awowga iyo walaalaha aabe labadaasi waa isugu keen darajo sidaynu arki doono kaalinta lixaad wuxuu inoo geliyey alakhu shaqiiq kaalinta labaadna alakhu liab kaalinta sideedaad waxa galay ibnu akh shaqiiq walaalkaa shaqiiqaa wiilkiisa kaalinta sagaalaadna ibnulakh liab kaalinta tobnaadna wuxuu inoo geliyey ibnu akhi shaqiiq wiilkaa shaqiiqa ah wiilkuu dhalay wiilku sii dhalay ta 11aadna wiilkii la midka ahaa ee aabbaha qura wixii buu inoo farabadiyey 24 qof inoo soo qoray kaalinta 12aad markii laga baxay aabbaha dhashiisii dadkii kula dhashay iyo dadkii dhaleen wuxuu u gudbay qoladii awowgaa dhalay oo aabbaha la dhashay sooma camka kaalintii 12aad galay shaqiiqa ah adeerkii aabbaha ay isku hooyo aabbahaayeen 13 kii isku aabbaha qura ahaayeen 14 wiilkii adeerka shaqiiqa ahi dhalay 15 kii adeerka aabe dhalay 16 wuxuu ka dhigay wiilkii in adeerka shaqiiqa ahi dhalay wiilkiisa kii 17aadna wiilkii in adeerka ahay aabbaha adeerka aabbaha isku aabbaha ahaayeen wiilkii uu sii dhalay hoos buu sii daadigay macnaha wuxuu rabaa inaad fahanto in adeerku halkaa kuma joogee hoos buu sii aadayaa iyo kor labadaba uu aadayaa kaalinta 18aad wuxuu inooga dhigay aabbaha adeerki oo awowga ay shaqiiq u ah macnaha waa camun shaqiiq lilab cam shaqiiq ahoo aabbahaa lahaa iyo cam liab oo aabbahaa lahaa iyo ibnu cam shaqiiq oo aabbahaa lahaa wiil macnaha in adeer aabbaha la in adeera weeye ibnu cam liab ibnu cam shaqiiq liljed kuwii saasoo u waday awowyada labaad inamadii ay dhaleen iyo wixii ka farcamay buu inoo galay marka ilaa 25 qof inoo sheegado uu kala saaray 5 usuul iyo furuuc ka dhigay iyo 20 xawaashidii ah marka 20 kaas inta badan culimada may soo bandhigaan oo waxa la sheegaa intii 25 ka kamid ahayd 25 qof aynu soo baranay Soomaa 25 kii wixii ka jooga oo ibnul camku ugu shisheeyo iyo ayaa la eegaa marka saasay u kala sareeyaan oo nambarada u kala leeyihiin ay hadhowna isu xijaabayaan tanbiih ma halkan laba arrimood buu ku sheegay oo kaalinta lixaad markaynu joognay wuxuu inoogu daray waluqtu shaqiiqa xagga hoos inoogu qoray waa ka booday gabadha shaqiiqada ah binafsi darajati alakhi shaqiiq waxay la darajo tahay walaalka shaqiiqa ah idaa kaanat hadday noqoto casabatan maca alkhayri casabatan maca alkhayr hadday noqoto goormay noqon jirtay haddii farac dhadig ay weheliso ukhtada shaqiiqada haddii ay farac dhadig geliso ay weheliso halkii shaqiiqunba imanay wixii shaqiiqu xijaabi jiray kuu xijaabay wuxuu qaadan jirayna way qaadan xaggan kalena 7aadna wuxuu yidhi
والأخت لأب ولا شعاب بنفس درجة الأخ لأب وحل درجتها ولالك أب إذا كانت عصبة مع القير هذي نقطة ويقبض فرعة أي سوي مادان مركانا حالة وحي نقونا يدينا ويل كاسوي حجابي تشربي حجابي تنبيه تقديم عصبة الولاء قلدا ولها عصبدوده sida loo kala hormarinayaa buu guri sida loo kala hormarinay casabada waluhu mithlu taqdiimi casabati nafsi wa sidii loo kala hormarinayay casabada nafsiga wa huwa qawlu alhanabilati qawlka aynka oranayana wa qawlka hanabilada wal ma'mulu bi indana saasana ku shaqaynayna shaafiiciyaduna saasay qabtaa marka la kala hormarinayo haddii muctiqa wiilkiisa joogo aabihiina joogo xoolihiinu siinayna wiilkeenu siinayna sidii u ka darajada u kala lahaayeen baynu kala wadaynaado bunuwadii iyo ukhuwadii iyo umuumadii iyo juduudadii iyo baynu kala eegaynaa وإذا سمع هذا يسوي معدان ابن المعتقي ميلكو دالي معتقى يو أبو المعتقي معتقى أبيه ويقدم وحل هرمرينيا ابن المعتقي ميلكي ومعتقى دالي بالهرمرينيا أبيه باسكتيريا والحجابية وهو قول الأئمة الثلاثة صدح ذي مذهب الشافعية يا مالكية يا حنفية با ساسي كتاقين بودي والمعمول به عندنا كاسي انو نكو شقينينا خلافا تاسو كدوان للحنابلة مذهب كحنابلة فإنهم حنابلة يعطون وحي سينيا أبا المعتقي معتقى عابه السدس الحدلال وابن المعتقي ويلكي معتقى دالينا الباقي باقي سينيا وحليه معتقيه ولا دحليه كسوقات معتقيه لا دحليه كسو محو ابوه ران لها سلمان سوسكيس الله سي حنابلة ساتري لكن صدخدي مذهب كليبا way khilaafeeno waxaynu qaadanaynaa hadii in xasabada muctiqa iyo muctiqadu ay u kala horeeyaan darajadii xasabada loo kala lahaa markii awalaa casabatu binafsiga tusaalayaal binasiiyey tusaalaha koowaad hooya joogta ayeeya aabe iyo ibnun marka ayeeya aabe ahlu faral bay iska ahayd weligeedba casaba ma soo gasho aabihii casabanimadii waa laga riixayoo sudus buu yeeshay isaguna ibniguna muxuu noqday casabo isagaa mudan marka masaladii laba sudus baa ku jira maxaa ka dhaxeeya tamaathul lix baa lagu dhisay aabihii ayeeyadii waxa la siiyey hal xarig aabihiina hal xarig qaacidadiisa buu iskaga socdaa isagu inagu ayeeyada waa xijaabi lahayn soo ma laakiin isagu wuxuu soo maray inuu soo mariyay ayeeyada inaan madhabkii xambilada uu ku shaqaynayo oo ay wiilkeeda wax la qaybsanayso laakiin inaga madhabkeena ayeeyadan umul abi haba ma qaadanayso abaha xijaabaya oo qaacidadeeni baynu ku soconayna man adlaa bishakhsin la waxba la dhaxli maayo ilaa waladul ummi mujani ibnuguna wuxuu qaatay baaqiga iyo isaga casaba misaa tusaalaha labaad abul abi waa awoowi akhun shaqiiq iyo akhun liab labadiiba awoowuhu ku xijaabada oo qaacidadiisiiba ku socday tusaalaha afraad toddoba wiil ya tusaalaha saddex waa sabcatu ibni akhin liabin walaal aabe toddoba wiil oo u dhalaa jooga iyo ibnu akhin shaqiiq wiil walaal shaqiiqihi dhalay iyo cammun shaqiiq adeer shaqiiq ah aabaha buu shaqiiq u yahay macnaha
marka todobada wiil waa casabo ibn akh shaqiiqan quwadiisi waxba uma tarin shaqiiqnimadii sababtoo ah waa laga darajo sareeyaado 7 abnaa oo walaal aabe dhalay ayaa ka darajo sareeyay iyaga inan buu sii tirsaday hal oday buu hoos u sii degay Soomaa adeer bay u yihiin marka adeeradii baa xoolihii dhammaan qaadanaya todobay ahaayeen todobadii baa lagu dhisay iyaga la kala siiyay tusaalaha afraad waxa weeye 6 gabdhood oo meydkii dhalay iyo ukhtun shaqiiqa gabadh shaqiiqada iyo akhun li abay soo yimid 6 gabdhood maxay leeyihiin 2 thulus ukhta shaqiiqa ahna maxay tahay ay noqotay casabatun bil khayr gabdhahana casabeeye farc dhidig bay weheliyaan marka halkii shaqiiqa timiyooyadina casabay noqotay akhun li abkiina iyada xijaabtay marka 3 xarig baa laga dhigay xarigii soo haray ukhtadii shaqiiqada ahayd ba qaadatay akhun li abkiina iyada xijaabtay tusaalaha shanaad ibnu ammi shaqiiq iyo ammu shaqiiq lil jad iyo ammu li abil ammu li abin lil ab waxa meeshii jooga ibnu ammi shaqiiq ah macnaha in adeerka oo labadiina aabe isku hooyo iyo aabe ahaayeen wiilkii uu dhalay adeer baa u tahay Soomaa waxa kaloo jooga ammu shaqiiq lil jad odaygii aabaha dhalay awowga adeerkii oo awowga labaad shaqiiq ahaayeen waxa kaloo jooga ammu li abin lil abi aabaha adeerkii aabe aabaha adeerkii aabe jooga meeshii isugu yimi ibnu am ninkan maadeerka tihiin yaa isugu timaadeen awowgii koowaad baa isugu timaadeen ammu shaqiiq lil jadna yaa isugu timaadeen awowgii labaad baa isugu timaadeen ammu li ab lil ab aabaha adeerkiina xagaa isugu timaadeen awowga labaad baa isugu timaadeen la aabaha buu adeer u yahay xagaa isugu imanaysaa awowgan labaad marka xoolihii oo dhan waxa la siiyay inan kan aad isugu timaadeen awowga koowaad oo in adeerka dhalay inankii in adeerka dhalay waa xoolihii qaadanaya qoladii aabaha adeerka u ahayd iyo kuwii awowga adeerka u ahaa waa la xijaabaya bintu ibnin iyo ukhtun li ab iyo ammu shaqiiq bay isu yimid bintu ibnin bar bay yeelatay ukhtun li abna casabatun maca alkhayr bay noqotay Soomaa baaqigay leedahay xoolihii labadooda loo kala tuuray amkii shaqiiq ahaana waa la xijaabay yaa xijaabay ukhtun li ab xijaabtay maadaama ay farc dhidig heshay awoodii wiilka yeelatay wixii uu xijaabi jiray oo dhan way xijaabaysaa tusaalaha toddobaad wuxuu yidhi jaddun lilmuctiq marka casabatul muctiq baa meeshii joogta awow muctiqa awow ahaa iyo akhun shaqiiq lilmuctiq iyo muctiqatun lilmuctiq 3 qolo isu keenayoo 3duba walaha xaggiisii ka yimaadeen muctiqi meesha ma joogo laakiin yaa jooga casabadiisii casabatu binafsi ahaa oo jaddun lilmuctiq mid awow buu u yahay midna muxuu u yahay akhun shaqiiq buu ahaa midna waa muctiqul muctiqoo kaw xoreeyay buu sii xoreeyay kaasi isagu ma dhow ee tuur labadani waa sinaayeen markii madhabkeena la eego jadkan iyo laakiin wuxuu isagu yidhi mar haddii awoowe joogo walaalka shaqiiqa waa maxjuub akhun shaqiiq lilmuctiq iyo 2 wiil oo muctiq dhalay iyo abun lilmuctiq kuwaana wuxuu kala hormariyay ibni baa meeshii jooga kaasaa xoolihii dhaxlaya oo muctiqa booskiisii imanaya akhu shaqiiq lilmuctiqna waa maxjuub abun lilmuctiqna waa maxjuub
qoladii lahayd aabbaha sudus baa la siinaya iyagana daaqadu ka saara allahu mustacaan wakalena أول waxaan isla xajbigaad ku dari karaysaa laakiin isku dhamaatay intaa 10 daqiiqo ee adimaada ka haray waxaynu ka shaqaynaynaa kuwii shalay